ما وتجي يلا ترتمي 1 2 3 4 كل إيدري كانوا كليتو مركليتو قلت كليتو ما شاء الله راب كاتشي ما انت انا شد حق بكشي مركب دشي بدل إلهي ولي ما يدسروق على الدوغة ما dagaalka ka dhexeeya fanaanka Ilka Case Qays iyo Sharma Boy oo sii xogeystay kulatu wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada halka naga daawanaysaan waa socod media fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar gambalka furo waxaana si sharaf ah ka codsanaynaa muuqaalkan like sartaan like waa inuu muhiim dhiirigelin ay noo tahay waana kaaga mahadcelinahay haddii like noo saarto haddii aad daawanayso waana kaaga mahadcelinahay iska daxaasnimada xaasnimo fiicno like dhacsi sharaf ay noo tahay adigoo like noo saaro fanaanka Ilka Case Qays iyo Sharma Boy dagaalkooda meeshii ugu xumeed ayuu marayaa waxaana durba isku jawaabaya heesaha noocyadii ugu dambeeyay waxa hees ku soo karbaashay markii ugu horeysay fanaanka Ilka Case Qays hees magaceeda social media qabstay la dhihi jiray Skiifo oo kula jeedo Sharma Boy sida ay dadka xiiseeya rababka ay sheegeen in lagula jeeday fanaanka Sharma Boy ayaana durba soo qaaday hees uu ku karbaashayo fanaanka Ilka Case Qays uuna sheegay Ilka Case Qays uu ka misaysan yahay horumarka muuqdo uu ku sameeyay 2 sano gudahooda fanaanka Sharma Boy ayaa sameeyay shacbiyad aad u fara badan wuxuuna kasbaday dad aad u tiro badan wariyaha la dhashay Sharma Boy wuxuu ka yiri maseerka uu qaaday fanaanka Ilka Case Qays uu ku karbaashay heesta walaalkiisa Sharma Boy barnaamijkeena ayaan ku soo qaadan doonaa muuqaalkana like saar laagtu waa inuu muhiim channelkana subscribe saar ee gambalka furo fanaanka Sharma Boy ayaa si xun u karbaashay fanaanka dhigiisa rababka ku dheereeya Ilka Case Qays fanaanka Ilka Case Qays ayaa kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan dhanka rababka haddii la dhaho fanka xataa wuxuu ugu caansan yahay fanaaniin aad u tiro badan fanaanka Ilka Case Qays ayaa rababkiisa soo bilaabay sanadkii markuu ahaa 2008 ilaa 2009 ayuu raabkiisa soo waday fanaanka Ilka Case Qays ilaa hadda uu ku wada jiraa Ilka Case Qays ayaa ku jira fanka Soomaaliya dhowr iyo 10 sano ah wuxuuna kasbaday shacbiyad aad u fara badan wuxuuna qaaday heeso wadaniyad ah iyo heeso uu qarankiisa ku difaacayo cadowgiisa ku karbaashayo fanaanka Ilka Case Qays ayaa lagu bartay raababka karbaashka ah ayaana fanaanka Sharma Boy ku soo karbaashay raab aan horey loo arag una sheegay in Sharma Boy uu yahay ciyaal uuna gaari karin sida raababka u sameeyo fanaanka Ilka Case Qays sida uu heestiisa uu ku sheegay oo la fahmi karo in uu kala jeeday fanaanka Sharma Boy fanaanka Sharma Boy ayaana asagana soo qaaday hees uu ku karbaashayo fanaanka Ilka Case Qays fanaanka Sharma Boy ayaa kamid ah fanaaniinta waqti xaadirkan ugu caansan fanaaniinta Soomaaliyeed fanaanka Sharma Boy ayaa sameeyay shacbiyad aad u fara badan wuxuuna fanka soo galay 2017 laakiin wuxuu soo shacbaxay ama caan noqday fanaanka Sharma Boy 2019 markii social mediaha lagu faafiyay muuqaalo uu soo duubay fanaanka Sharma Boy ayaa nasiib u yeeshtay inuu ka mid noqdo fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan oo waqti xaadirkan horumar aad u weyn ka sameeyay fanka uu ku guda jiray horumarkaas ayaa ah in uu magac weyn ku yeesho uu heesiisa laga daaro bajaajyada iyo baawurada iyo goobaha arooska ee lagu ciyaaro fanaanka Sharma Boy ayaa noqday fanaan aan la hulin karin waqti xaadirkan fanaanka Ilka Case Qays ayaana asagana durba laba kacleen soo sameeyay rababkiisa uuna sheegay fanaanka Ilka Case wax raabista bedeli karo aan la heli karin ayuu sheegay fanaanka Ilka Case Qays heesaha rababka ugu dambeeyay uu soo qaadaya ayaa ku jiray in la bedeli karin heesihiisa ama qof bedeli kara aan la heli karin sida uu rababka u qaado fanaanka Sharma Boy
fanaanka Sharma Boy walaalkiisa ama ah wariye ka shaqeeya telefishinada Soomaalida sida Somali Cable wuxuuna u soo shaqeeyay TV Universal wuxuuna hore u soo shaqeeyay TV Shabeelle TV. fanaanka wariyaha soo feesana ayaa sheegay in fanaanka ilkaas qays uu xilka ku wareejiyo ciyaal barmudo oo kula jeedo walaalkiisa Sharma Boy in lagu wareejiyo in uu yahay raabistaha Soomaaliya kuwooda ugu heesta. wariyaha Soof Maxamuud Cabdinaasir Soof feesana ayaa bartiisa Facebook ku soo qoray ilkaase kaligii taliyaha noqon xilka ciyaal barmudo si nabadgelyo ah ugu wareeji Sharma Boy. wuxuu kala jeedaa fanaanka ilkaase uu leeyahay iska wareeji raabisnimada ama waxa ahayd awalkii hore boqorka raabka ee ku wareeji walaalkeyga la dhashay Sharmaake Cabdinaasir iyo bartiisa Facebook ku soo qoray wariye Maxamuud Cabdinaasir Soofeesane oo la dhashay fanaanka Sharma Boy. dagaalada ka dhaxeeya fanaaniinta ma aha markii ugu horeysay laba fanaan sidaan hees isku soo karbaashaan. haatan waxaa dagaal xoogan ka socda dalka Ingiriiska fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda ku nool oo jili jireen riwaayadaha u jili jireen ninka loo yaqaan makaamilistaha Abuukar Mahdi oo ah ninka directorka ka ah filmaanta qoto xujo u jili jireen fanaaniinta si ayuuna isku dhac aad u weyn soo dhaxgalay markii uu rasmaa fanaaniin sidaan oo kale isku dagaalan Sharma Boy iyo ilkaase ayaana dagaalkooda sii xoogeysanaya waxaana jawaab laga sugayaa hees kale in uu soo qaado fanaanka ilkaase qays oo fankii dib ugu soo laabtay heesiisa raababka soo durbo celiyay. ilkaase qays ayaa ku mashquulsanaa siyaasadda dalka Soomaaliya mar uu tagay deegaankiisa uu ka soo jeeday Jubaland. markaasi kadib ayuuna madaxweynaha Jubaland aad u soo dhaweeyay laakiin markii kadib ku balanta ugu baxay madaxweynaha Jubaland Axmed Islaam Axmed Madoobe ayaa ilkaase ka soo horjeestay siyaasadda Axmed Madoobe. ilkaase ayaa siyaasadda u galay dan gaar ah uu asaga leeyahay uma galin taageero u hayo madaxweynaha ka ah Jubaland Axmed Islaam Axmed Madoobe. markuu danihiisa uu ka waayana wuuna soo karbaashay mar walbana wuxuu ku cayaa bartiisa Facebook uu ku leeyahay. waxaa kala socon doontaan dagaalka ka dhaxeeya Sharma Boy iyo ilkaase qays hor socod media. fadlan waxaa si sharaf leh ka codsanaya inaad iska daasid xaasinimada muuqaalka Lagsar iska day xaasinimada laagtu waa inuu muhiim adiga laagtu inaad saarto wax weyn kulma ahan laagtu dhacsi iska day xaasinimada waa codsi qof walaalka wax ka codsaday looma diido qarash kuma socdo lacag laga maarabo Lagsar muuqaalkan tan iyo kulan dambe kulmi doon waxay ka tagaan sidaas nabadgelyo iyo barnaamijyo kale oo xiiso leh muuqaalka Lagsar waa inaad muuqaalka Lagsarta ayaan isku ognahay sidaas iyo nabadgelyo barnaamij kale oo xiiso leh. afkaga waxa ka da'aya waa dhageer